ebo warligo nabada ebo ummado nabada ebo wanu manahi ebo wanu manahi. My expectations for my government is a peaceful, democratic elections process, and then a new president on August 20th, and a peaceful Somalia, inshallah. دولة عصب وحكرنا جينا دولة الآن وادبات دولة عصب حكرنا جينا دولة هورك فعلا إن شاء الله تعالى نتماضم دولة كانوا بيد التلح دولة أمد وأديكتا شرف وأديكتا علم وأديكتا استشعالات كلا بيسا إن شاء الله تعالى تسكر جينا إن شاء الله. دولة الصومالية كدلنا دونتا ما يبقى نرجع runtii intii anaga dawlad cadaalad ah dawlad ku xukumo doonta ummadda muslimiinta ah yana rajeey kan la doonana madaxweynaha la doonana isuuna may ba ilaahay ku toogay intii isu daacad naga oo dalka idadka diinta bisu ku xukumo wadanka dhibaatadu 20 sano hadda rasi intii ilaahay ku biyo isuuna rajeeyna ki kasta naga doon waxaan rajeynayaa inuu Sheekh Shariif dib in mar labaad 4 sano cusub la doorto ilaahay in sha Allah waxaan rajeynayaa Sheekh Shariif in mar si hawshan qad u dhiman uu sii dhameesto marka wax badan buu qabtay Shariif hadii la dooro waayo wax kale hadii la dooro waayo ummadda Soomaaliyeed ninkay doortaan nin walba la doorto inaan taageero laakiin ugu abiniinkayga waxaan qabaa in Sheekh Shariif dib 4 sano cusub la siiyo. Not much. Inshallah, we get a competent government. The expectations are going to be low. I'm hoping we won't get Sharif again. Just personal view of mine, but inshallah, we can get a cohesive government that's about Somali anymore. I don't really have a high expectation anymore because my expectation just going lower and lower as the year goes by. So I just expect them to bring something new to the table and a bright future for all the Somalians around the world. That is disgusting. That is, first of all, it's a disgusting thing, and Dintina, I don't believe Dintina Wahtogashai. That's Al Shabaab's idea, and I totally disagree with it. That's definitely something new. Obviously, we know that it's not halal, because Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he said that anything with canine tooth is not to be eaten. So I don't know how they made an exception to that rule. But inshallah, Somalis everywhere have common sense to know that that's a bad decision on their part. Al-Shabaab or whatever sheikhs are promoting that. وراها لعنا يتابع علماء مدينين إن شاء الله. علماء وحي كير هذا لكن أنا فكر هان وراها ما قبل إن وراها يلقي صلاحهم. لكن علماء لو دينا دين تاي دين علماء مدينين. وراها الأعمى أو كسمانية حتى الكشاجي أو الشباب حلاليتي. runtii Soomaali wallan ka aragana male runtii islaxiyo la aragay laakiin tan ma la yaabo gaanub meel eray halaala nafadiid hoodede hilibkii waraabaga oo la aamay waraabaga dadka aamay row xayawaan dad aamow ad aamo kortay marka maya way su'aalan marka ana ma malayo inta la aamo kortaas arrinka ayada waa arrin aad u gurto ahaantii markaan yareen waxaan lagu seexin jiray ruuxa ayaa dadka cuna arigu cuna waxaan ad ilmaheena waxa lagu seexinayaa dhurwaag waa la cunaa asaga waa la cunaa laftigiisa wax ka mid ah dhibaatada keeni karaba arrinka ayada waxaan u arkaa inay tahay khatar culus oo soo socota oo loo baahan Soomaaliya hadana in arrinka ayada si fiican culimada kala tashano haddii aysan jirin la cadeeyo waliba xukuumaddu ay ka soo saarto soo socota go'aano cad oo ku wajahan arrimaha noocaas oo kale waa arrin aad u khaldan arrintaas ayada sida kan ugu lama. No, I'm not going to eat hyena meat. No. I advise anybody not to eat hyena meat.